madaxa xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowladda Jubbaland Xaaji Cabdiwaaxid Xaaji ayaa maanta shir gudoomiye kulanka isku duwidda u dhaxeeya wasaaradaha dowladda Jubbaland. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ah agaasimaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Jubbada Hoose howlwadeenno ka kala socday wasaaradaha dowladda Jubbaland. Ujeedada kulanka ayaa daarnaa kor u qaadista wada shaqaynta isku duwidda howlaha dowladda iyo hagaajinta adeeg bixinta bulshada. jaamac ugaas agaasimaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Jubbada Hoose oo goran kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay kulankan iyo doorka uu ka ciyaarayo xoojinta wada shaqaynta wasaaradaha dowladda Jubbaland. waxaa la rabaa dowladdu in ay wada shaqayso dhiigga bini'aadanka midigta iyo bidixda labadu way isweydaartaan way shaqeeyaan sidaas oo kale la rabaa in la isla shaqeeyo oo aan la kala jiidanin waxyaalaha badan wixii kore waxa iskale wasaaradaha wasiirada iyo agaasimayaasha guud iyo yaa iskale maartay isku xidhkooda ilaa dadka hadda wasaaradaha u shaqeeya shaqaalaha ah waxa la rabaa inay saaxiib noqdaan dawladdu wada shaqeyso isku sina loogu shaqeeyo dawladdu hagar la'aan loogu shaqeeyo dalkan haddii sida aan rabna loogu shaqeynay waa tahriibina badan isku guraynaa ama waa in la qabsano ummad kale ayna qabsan doonto dalkeena manafacaadkiisa isticmaalisa adduunkana lagama helo wadan aan dhulgariir lahayn oo buuro lahayn oo fatahaad lahayn oo baraf lahayn oo shidaalkii iyo dahabkii iyo beerihii iyo baddi ay isdhex fadhido iyo xoolihii iyo ugaadhi adduunka lagama helo wadankeena aan ka shaqaysano qalbiga aan gelino haddii wixii kalena aan iska dayno oo xumaanahayd iyo qabiilka iyo qurunka iyo waxyaalaha kale ee Soomaalidu aad hadda uga buuxsamay 35 sano hadda ku jiray Allahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre waagu aasay wadanka raas casay raas Kamboni hal ruux buu ahaa kii booramiye saylac laga keenay halkan madax ka ahaan jiray iyo Hargeysa marka sidaa darteed waxa la rabaa ummadda Soomaaliyeed waa hal qabiil waa hal shakhsi waxaa la rabaa inay hal shakhsida ay waa isku af waa isku diin waa isku aragti waa wiil iyo abtigi iyo wiil iyo adeerkii dhankiisa madaxa xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland Xaaji Cabdiwaaxid Xaaji ayaa sheegay in kulankan uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo wada shaqaynta iyo isku xirka hay'adaha dowladda kulankan maanta wuxuu daaran yahay waa kulan isku xiraayo hay'adaha dawliga ah ee ka wada shaqeeyo dejinta iyo maamul wanaagga wasaaradaha kala duwan ee Jubbaland iyo dawladaha hoose ee Jubbaland iyo gobolkii kulan isku xiraya waay si loo helo shaqooyinka kala duwan oo wasaaradaha ay ka kala wadaan degmooyinka iyo deegaanada Jubbaland kadibna aan u ogaano caqabadaha guud oo ka jiro markii hay'adaha dawliga ay fulinayaan ama ay hirgelinayaan barnaamijyadaas kadibna aan iska wareysano kana niqaashino caqabadahaas iyo guulihii la gaaray recommendation aan bixino maxaa what is the way forward aan isweydiino markii recommendation-ka aan bixino waxaa noo soo baxayaa haddii hay'ad hebel ama wasaarad hebel ay shaqo ka waday tuulo hebel ama degmo hebel ay ka waday shaqada macnaheeda waxay tahay ciladii jirtay iyo wixii jiray ayaan isku xiranaa kadibna waxaan gaaraynaa xal shirkan waxaan qabanaa bishii hal mar ayaa la qabtaa bishii hore waxaa lagu qabtay Maka bishii kasii horeysayna hoolkan ayaan ku qabanay marka waa shir bilo ah oo haddii la yiraahdo looga niqaashi doono barnaamijyada iyo guulaha aan ka wadno deegaanada kala duwan ee Jubbaland marka waxaan rabnaa inaan iska wareysano qof walba meesha uu matalayo iyo hay'addu uu matalayo wixii caqabad ka jiro si aan maaragtay dejinta maamulka uu noogu fududaado ka wasaarad ahaan aad u mahadsantihiin